بسم الله الرحمن الرحيم إن مانتا أي تاريخ وتاي صدح ذا بيش سبتمبر لبكون يلحي طبعا وحاسكو يمد برلمان كدولة جولات كجلمدك وحين صار صارين مكسوق المجالات عدد وحين صار صارين وصحافات كان وصحافات كانت قصة بسن إن الرنكس إن خد عضي مجالات عدده إن وصحافات كانت قصة بسن الرن قصة كررت الأمان شعب كجلمدك إن أنكسو هرتشيدنو الرنتا قصة بسن إن بدحتو يدا أي أفر يلا تنصع كم مغنتهاي كورنتادي بيهي iyo amnigi waxaan ku tilmaami karnaa inay ka dambeeyaan madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka Galmudug waxaana laga soo horjeedaa in uu furmo baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug waxaan cadeynaynaa in aan raalli aanan ka ahayn arrinta hadda taagan labo waxaan soo dhaweynaynaa shirka soo xulista baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo aqalka sare ee lagu qaban doono magaalada Cadaado ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug waxaan ka digaynaa inaan la jahwareerin shacabka Galmudug waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka reer Galmudug gaar ahaan shacabka reer Cadaado inay ka qayb qaataan amniga magaalada Cadaado kana soo horjeestaan cid kasta oo qalqal gelinaysa habsami u socodka shirka doorashada ka dhici doonta magaalada Cadaado باغنا بدر waxaan baaqna bad u soo jeedinaynaa oo anaga baarlamaanka Galmudug wuxuu baaqna bad u soo jeedinayaa shacabka wada degan magaalada Gaalkacyo in xiisada taagan lagu xalliyo si degan oo nabadgelyo ah labo madaxda labada dawlad goboleed in ay si walaaltinimo iyo mas'uuliyad ay ku jirto loo dhameeyo iyadoo la eegayo danta bulshada degan magaalada Gaalkacyo ee walaalaha بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan isugu nimid in aan ka hadalno arrimo ku soo kordhay magaalada Cadaado inkastoo ay hore u dhici jireen laakiin gudoomiyihii baarlamaanka oo dhex fadhiya madaxtooyadii ayaa halkii lagu damiyay ciidamadiina laga watay waa mas'uuliyad daro xukuumadda iyo baarlamaankuna way kala leeyihiin shaqooyinka waa shaqadii xukuumadda afar xarumood oo ay leedahay dawlad goboleedka Galmudug ayaa 48 saac korontadu ka maqan tahay waxay uga maqan tahayna waa wax aad moodaysid in markii meesha madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenku ay ka baxaan inaan inta kale joogto dan laga lahayn arrinkaasi waa arrin u baahan in la xisaabtamo la baaro saldhigyadii booliska idaacadihii codka ku hadli jiray gobolada dhexe ama Gaalkacyo ku taalo ama ku taalo magaalada Cadaado ayaan haysan korontadii ay ku hadli lahaayeen iyo awal mushaar ma haysan shaqaaluhu waa dhibaatooyinna haysta oo aan doonayno inaan ka xisaabtano hadda waxaa la kala gurayaa xildhibaanadii waxaa loo kala wadaa in aysan inta isu yimaadaan kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka uusan furmin baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug ama nan ha la damiyo ama guri ha la xiro meel bannaan buu ku shirayaa way soo imaanayaa wana la xisaabtamayaa ciddii dadkan reer Galmudug dhibaato u geysatay ciddii wana u geysatay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamahayaa xildhibaanada dawlad goboleedka Galmudug saxaafadda iyo dhammaan shacabka dawlad goboleedka Galmudug waxaan ognahay in halkan ay ku soo wajahan tahay oo 16ka laguna soo xuli doono aqalka sare iyo aqalka hoose loona gudbi doono dawlad federaal ah waxaan u sheegayaa dhammaan shacabka dawlad goboleedka Galmudug baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug inuu raalli ka yahay deegaanka Cadaado in lagu qabto doorashooyinka dhamaantood waxaan ognahay Cadaado inay dhashay dawlad goboleedka Galmudug annaguna waxaanu nahay wakiiladii shacabka way naga mudan tahay Cadaado intaas iyo in ka badanba inay hesho way naga mudan tahay way naga heli doontaa waxaan codsanaynaa
oo aan ka codsanaynaa dhammaan shacabka dowlad goboleedka galmudug iyo gaar ahaan deegaanka lagu qabanayo ee cadaado inaan dhammaanteen aan ka wada shaqayno sidii uu noogu horgeli lahaa doorashooyinka soo socda oo si nadiif ah oo amni ku jiro oo xasilooni ku jirto oo nabad ay ku jirto oo is-ixtiraam ay ku jirto dhammaanteen inaan uga wada shaqayno. waxaanu ognahay maalmaha kan in laga soo bilaabo bisha koodeeda ilaa yoom alhaada madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ay dunsan tahay. waa nasiib darro, waxa weeye roqo ninkii lahaa ku fadhiya ma kacdo. waxaanu jecelnahay dowlad goboleedka galmudug dhammaantood inay shacabka ay u dhaarteen inay u wada shaqeeyaan. ma aha baarlamaanku inuu duminayo dowlad goboleedka galmudug. baarlamaanku waxbuu saxaa, sharcigu mataqaanaa ilaaliyaa, dadku sidaa inay u gartaan weeye. maaha baarlamaanku wuxuu ku hadlaa shacabku wuxuu uu doonahayo, shacabka uu u dhaartay mas-uuliyadda uu qaaday inuu ku ilaaliyo oo si sharciya lagu ilaaliyo baa baarlamaanka waajibaadkiisa waa ka mid. waxaanu ognahay maalmaha kan deegaanka gaalkacyo in qalalaaso darra inay ka jirto. baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug wuxuu soo jeedinayaa oo u soo jeedinayaa shacabka walaalaha ah oo isku ehelka ah oo weliya abtigiis ah oo aan kala maarmin oo halka magaalo wada jooga inay ka shaqeeyaan nabadda, inay u turaan dadkooda iyo caruurahooda iyo hantidooda. waxa wax ka baaba'ayaan waa iyaga, waxa caruurahooda jaamacada u waayahayaan waa iyaga, waxa isbitaalada dhaawaca ay gelayaan waa iyaga. annagana wayna dhibaysaa, meel kastoo aanu joogno wayna dhibaysaa, laakiin gaar ahaan waa deegaankaas. xukuumaddaha waxaan usoo jeedinayaa labada dowladood inay u turaan shacabka iyo mas-uuliyaddooda u dhaarteen oo tafaahum inay sameeyaan. bini aadamku markuu wada hadlo ayuunbuu wuxuu gartaa waxa ay nabaddu tahay, waxa xasiloonidu ay tahay, waxa horumarku tahay. wixii lagu heshiiyana waxaa loo baahan yahay labada dhinacba inay ilaaliyaan si sharciyan ah, inay isu waafaqaan waa laga maarmaan. mar labaad waxaan u mahadnaqahayaa dadka ku nool magaalada cadaado. dadkaas waa dadkii na soo dhaweeyey, waa dadkii dhalay mataqaana dowlad goboleedka galmudug. abaal badan iyo sharaf badan iyo karaamo badan iyo cizi badan baa dowlad goboleedka galmudug baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ay u hayaan. oo soo dhaweynta say noo soo dhaweeyeen, say noo ixtiraameen, say guryahooda noogu soo dhaweeyeen, say mataqaana nabadda iyo xasiloonida deegaanka ay mataqaana uga qayb qaateen. waxaan codsanahayaa oo kale shacabka aan ka codsanayaa deegaankan inay gacan siiyaan baarlamaanku inuu waajibaadkiisa uu guto, baarlamaanku inuu shaqeeyo, inay gacan ku siiyaan. wax kastoo xasiloonida mataqaana wax u dhimahayana dhammaantoon inaan ka wada hortagno oo ay gacan ay ku siiyaan hay-adaha amniga. wasalaamu calaykum.